وبرنامجكي سويال كشف هذا وعاوة أن كدو الاستاغ أنه إلهي أون حريستي كورنيل فرحان محمود حرسي ولو قرانوغا فرحان محشوان halkan ku hadda ma bilaabana dhowr iyo 10 sano waa soo socday haddii soo socday ma dhamaano haddana ma bilaabo halkan ku socon doona waxay la tahay in la gaaray xilligii wixii qalab iyo siyaasadda waxaan wataa inuu wareeg lahaayeen wixii xabada dhulkiisa aaminsanana inuu wareeg lahaayeen aad muhiim u tahay in halkaas muhiim ugu ahay in halkaas uu nimaano maskaxdeena iyo muruqeena aynu midayno sidaas ayaynu wax iskaga celin karnaa dadweynaha khaatimada waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dibad inay isu taagaan halganka ay ku xoreysanayaan dhulkooda Soomaaliya meel ka jira deegaanada khaatimada ay ka jiraan ma jirto Soomaaliya meel ka jiraan ma jirto dad kala qaybsan dhulka qoqoban wiil walaalkii aan isu geli karin umadaanta joogo umadaanta caalamkana waxa ka jirta Falastiin Soomaaliyana dhulbaanto ka jira labadaas ma jiraan sidii aan u leeyahay dalkeena iyo dadkeena aan isu taagno ayaan ugu baaqayaa dalka dibad dadka reer khaatimo فرحان محمود حرسي محشوان إلهي هون حريستي وحاوها تليه علم الأساس مملدي كلا دنبيي أساس إلا وصول بصي طلح إيو صحلال فرحان محشوان وحاوها مجاهد هالجماعة وكسم تنمي الأضيق يدفع الديقان كيسا عاصمة خاطمة ثلاث ورد يرصد الحولة والشغل يا شوين عين والكالي فرحان محمود حرسي waxa uu 1970 ku dhashay deegaanka Gambare oo 25 kiiloomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Allahu naxariiste Farxaan caawa oo kale 2018 bishii 12 ayuu ku shahiiday ka soo horjeedka qaybta booliska ee gobolka Sool halkaasi oo uu chief iyo joog bawdiiday horjoogayaashii jabhadii argagixisada ahayd ee SNM weeraro kala duwan uu ku kala bixiyay qaybta booliska saldhigga dhexe jeelka iyo fariisimo ciidan oo ay Somaliland lahaayeen oo waqtigaasi ku sugnaa gobolka Sool Farxaan Maxshwaan oo halganka xoreynta deegaanada SSC soo bilaabay waqti aad u fog iyo mujaahidiintii kale ee naftooda u horay siday dhulkooda uga nadiifin lahaayeen urdufiintii Somaliland waxa hadafkoodu ahaa milgaha iyo gobonimada maanta SSC Khaatimo Soomaaliya ay ku naaloonayso Farxaan Maxshwaan Allahu naxariistay wahliyaygi uu ku halqabsanayay Allahu naxariistay mujaahid afgaab maalinkii uu jeediyay weerihiisii dhaxalgalka noqday ee ahaa Laascaanood dhiig bay ku xoroobaysaa ee sidii uu Farxaan u dhintay muu dhimanna waa inaan ku talagalnaa inaan dhimano sidii Farxaan u dhintay u dhigo gashi ilaahay bay ku horiyaa بالله توفيق ديك مو كحرين يا فوق ديك جيت يوم بيكحل الجوراي مو كحرين كما راي يا يبل بابا تدق جبروه رجعوا بابا بعد ما كنت وصلنا وديك قبله يعني هذا دور إنسان إنا الحرين دول كندي وين كنت على جلا inaan dhimano sidii Farxaan u dhintay u dhigo gashi ilaahay bay ku horiyaa ilaahay jannooyinkiisa kuwa ugu martabada sareeyaha ku arsaaqo Farxaan Maxshwaan iyo dhammaan shuhadadii SSC ee nafta u huray difaaca sharafta iyo milgaheena ma ilaawi doono xinjirta mid kasta oo kamida kuwii dhiiga noo huray waa Maxamuud Salebaan VOS TV Laascaanood SSC Soomaaliya